labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow YMCA Comprehensive Institute Buwambo Campus waxaan aad ugu faraxsanahay booqashadaada runtii tani waxa marqaati ka tahay ay muujinaysaa ka warqabka iyo sida uu dhiiran tahay inaad ka warqabto ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Uganda meel waliba ay joogan taasoo macnaheedu tahay inaad halka maanta noogu imaaday adigoo jooga meel intaasoo kiiloomitir naga jirto ama nooga fog aan noogu imaaday inaad ogaato xogteena sida oo noolnahay waxbarashadeena iyo caqabadaha aan kala kulanno halkan waxaa markaa salaamayaa gudoomiyaha ardayda qaramada midoobay oo mar dhow la soo magacaabay walaalkeena Cabdulqaadir Fiidka hay kullee yani alxamdulillah ardayda meesha ka bartaan kamid ahay waxaan leeyahay walaalay Soomaaliyeed waxaan leenahay marka qurbaa joogno aadan isku jecelnahay wadankeena markaan ku laabanana aadan isku jeclaano dhibaatooyinka ugu badan hadda dalkan ardaydeena ku haysta waxa kamid ah qabyaaladii oo inta dalkii kala soo tagno qurbihii la nimid runtii waa wax laga wanaagsan yahay insha Allah waxaan isku dayaynaa in sida ugu macquulsan ugu shaqeyno sidii ardayda Soomaaliyeed runtii arintaasi looga wacyi gelin lahaa waa dareemi kartaa marka dalkaagii aad ka maqan tahay oo dal kale aad joogtid qofka Soomaaliyeed ee shalay aad dalkii ku nacbanaada ah qofka ugu jeceshahay oo dadka kale kaaga sokeeya marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad si wanaagsan waxyaabo badan kaga qabanno oo ay qayb ka tahay waxaa la soconnaa ardayda Soomaaliyeed halkan hadda markay joogaan waxyaabaha ugu badan ama caqabadaha ama waxyaabaha ugu dhow ee markay rabaan inay jaamacad galaan ay u baahan yihiin inay safaaradda la xiriiraan iyo waxyaabo kale waxaynu ka shaqeynaynaa haddii Allah awood laga helo inaynu wax badan ka qabanno ama wax badan isbedel wanaagsan aynu ka sameeyno markaad la tacaamulaysaan safaaradda waad rabtaan inaad aadaan high commissionka insha Allah haddii Allah awood laga helo